annagu haddaan xalimo dheernahay doorashada qof iyo cod oo golaha deegaanka lagu diyaar baanu u nahay dadka kaararka waa kuwa qaadanaya fayl bay ugu jiraaniin waxa weeye dhammaan dadku diyaar bay u yihiin waxa weeye aad iyo aad baan ugu qanacsanahay dadkuna kulli waa ku qanacsan yihiin dadkii xalimo dheer wax soo socdo oo xoolii la jira wax lagu maqan yahay iyo wax noo jooga weeye insha Allah xaaladdu si fiican habbi noogu socotaa wacyiga bulshadu waa wacyigelsan yihiin waa wacyigelinay kaararka sida loo bixinayo shay u codaynayaanin ururka ay rabaan oo iyagu shakhsiyadooda kayfiyadooda ay ku raacayaanin shay u codaynayaanin intaba waa ka wacyigelin waana diyaar baan u nahay dabcan waxaan hadda ku suganahay xalimo dheer oo ay codbixintu ka socoto kaar qaadashadu ay ka socoto kaar qaadashadan oo loo bogay annaguna aanu qaybta ugu wanaagsan ka qaadanay oo fahanay si fiican oo aan musuqmaasuq lahayn ayay dhammaan uga socotaa deegaamada hadda annagu aan joogno kuwa naga sheegay kuwa xagga nagaba ah guddigayaga nooyi waa salaamayna si waa xalimo dheer meesha la xalimo dheer tuula xalimo dheer 73 qof 173 qof kaararkooda si sharaf lagu qaatay ma garat marka ilaahay boqorka ayagana waa salaamayna si sharaf leh qof iyo cod maalinta noo yimaadana si fiican codkay u baxaya kaarka yar cid aan siinayna ma jiro ma garat hadda sidaasaan ku salaamay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh qof walba kaarkiisa buu sitaa waa ku kalsoonahay aadna waa u soo dhaweynaynaa kaarkayga anaa ku codaynaya qof walba kaarkiisa ku codaynaya assalaamu calaykum